بسم الله. أنا مقعي وحالي هذا موسى حسن أحمد وحوم مغلق لكن واحد لا يا تكورك وحو كبل أبنايا والدك أباي وهيدا نلقيس وح مغلايا لعوك بحياة نلقيس وح مغلين وحوم برناي هيجو قولها تركي جو هوي مركونا هايو سويدن هوي مركونا هايو لكن أنا هوي مركاليناي shirarka ka dhaca dibadda ee anaga si toos ah lagu soo casuuma Soomaali ahaan dawladda inoo suurto gelisay inaan ka soo qayb galno bal haddii ogaata ayada dad kale ku dirsada si u tahriiban bismillah. أنا مقعي وحالي هذا موسى حسن أحمد وحوم مغلق لكن واحد لا يا سندكي لما كن يالكوجا أيام مارتي لقى بالي إسبتال أيا ودوري عربده كونينا تضبح حباه تاسو مغلق كي لا تغدا وحنا هذه شندل ودبده كميده أنا رادينا إن مقال كي ودب سونقضه وحن مري شنق قلين وهذا كسب فهم واي مكان سوق وسطي سنة كي لما بكون لحدة وحن أساسي يكون مدرسين دتك أنا وكلا أو مقال كلا سنة كي لما بكون تضبطه وحن فري سكول وحكوبتان عروض مقال كلا ayaa la ila yaabana war mawaalanta maqleen ma wax baranayo saan ugu waday alxamdulillah maanta dalka oo dhan 1700 oo arday oo caruura oo maqala ayaa inta uniform qaataan wax barashada aadaan inta ku dhex jiray 22 sano 22 sano waxaan isu guuriyay dadkii maqalka la'aa ee dugsiyada dhexe ka baxay wiil iyo gabar 22 wiil iyo 22 gabdhood oo maqala ayaan isu guuriyay alxamdulillah intooda badan hal iyo laba moogiye intooda badan caruur ayay dhaleen caruurtoodana waxbay maqlaan dooli sayngoon hadduu deeli sayn leh u abahayo deeli soo go'on ma dhalaayo dooli caadi ah ayuu dhalayaa dadkaasi maqalka la isu guuriyay dhammaan waxay dhaleen caruur maqala nasiib daradan haysato waxay tahay wali bulshada waxa ka dhacin laanahay inaan nahay dad jira oo wax qabsan kara oo maartay wax baran kara wali waa ka dhacin laanahay tusaalahan ملهن وقد سومالي ساين لانجويج وان اسكو فهمي كرنو ملهن قال كانوا waxay isticmaalaan American sign language قال كانوا waxay isticmaalaan British sign language قال كانوا waxay isticmaalaan Kenyan sign language taas waxay keentay in fahamkanaga uu cuslada tifiyada wana soo dhaweyn lahaayeen si sign language lagu soo daayo laakiin Somali sign language ma diyaarsano dawladda wali nuguma barabsano waxaan rajeynayaa in hadda isbedel uu dhaco sanadkan 2025 waxaan ka codsanayaa dadka Soomaalida walaalahayna ee dibadda jiro ganacsatada dadka waxbarashada ka shaqeeyo inay taageero u fadiyaan caruurtaas maqalka la oo caruurtoodii ah maalin kasta iskuulaha dadka wax maqla waxaan noola keenaa caruur dhiga beelay oo isbitaalada ay dhiga tireen anoo keenaa alxamdulillah qaar kamida daaweyn ayaan u helnay turki ayaan u qaadnay waa soo qalnay ayagoo wax maqlaya aan soo celinay haddii aan bulshadeena iyo dawladeena taageero ka helin misi jiri doono waan buraynaa sidaa darteed waxaan idinka codsanaynaa inay garab istaagtaan xagga waxbarashada xagga shaqada xagga dhiirigelinta runtii kow maalinta aan furaye
11 dhogol oo caruur ah ay gudahooda ka soo waday waalidkood way diidanayeen hana waalina dad maqal xun bareen hana waalina aniga ayaa jeebkayga wax ka siin jiray oo dhihi jiray sambuus iyo bur iyo nanacaysina kaalaya kadib markay arkeen dhogolada inay wax qori karaan waxna dhigi karaan dhogolada waa soo bateen waxaan gaarsiinay heer halkii arday oo dhogol ah aan ka qaadno $30 $15 baabuurka keenayo dib u celinayo $15 fiigi iskuulka macalinka wax barayo la siinayo taas ayaan gaarsiinay taasoo faa'iido weyn ah waxaan tagay 16 gobol ayaan tagay aniga ayaa lugahayga ku tagay waxaan ka soo furay iskuul ay dhogolayaal wax ku bartaan alxamdulillah hadda way hana qaadeen waxaan idinku bishaaraynayaa iskuulkii ugu horeeyay oo aan furo oo Muqdisho ku yaalo maanta waxaa si buuxda ula wareegtay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare laakiin iskuuladii kale oo dhan waa baylah qarka waxay ugu saran yihiin inay baaba'aan haddii aan laga soo gaarin 2025 ayadoo la marayo in dad Soomaaliyeed oo maqala aysan waxna qori karin waxna akhrin karin nasiib darro way sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa hay'adaha maartay ganacsatada muxsiniinta in dadkaas maqalka la ee gacanta ku hayno ee taageerada u baahan in laga soo gaarsiin waxyaalaha muhiimka ah qabanay waxa kamid ah waxaan magaalada Muqdisho ka sameynay 12 kooxood oo maqala oo tartan isboorti galo waliba la tartamo iskuulada kale ay wax maqla 22 dhogolayaal oo isu guurnay waxaan u furnay ganacsiyo yar anagoo isticmaalayno jeebkanaga iyo qaraabada anagoo isticmaalayno kuwa harqaan aan u furnay kuwa makhaayid aan u furnay kuwa dukaan yaro ganacsi aan u furnay kuwa miis aan u furnay kuwa intaan wadnay aan shirkadaha iyo maaragtay ganacsatada kaleeto aan u geynay oo ay la shaqeeyaan nasiib darrada haysta waxay tahay shaqada uu qabto oo weyn lama siiyo xuquuq shaqadiisa oo maaragtay leeg lama siiyo 150 hadduu ilmo dhalay 9 carruur u joogto 100 maxay ku samaynayaan haddii dawladda ay saxiixdo madaxweynaha uu saxiixo xeerka hindisa sharciyeedka naafada markaas waa dhihi karnaa mushaarkan iyo shaqadan isuma qalman hal kordhiyo laakiin inta dhan waxa muhiim ka ah in bulshada ay indhaha lagu soo jeediyaan oo naga warqabaan dadkan kama imaanin Yemen Ukraine maartay kama imaanin Muqdisho ku dhasheen gobolada dalka ku dhasheen waa Soomaali waa walaalaheen waa dadkeeni haddaan taageero helin maartay meesha weyn ayaa ka imaanayo dhibka ugu daran oo aan la kulanno maalin kasta hortaagan waxay tahay hay'adaha dadka caawiya waxay nagu dhahaan naafada waa laba qaybood qayb way muuqataa indhoole iyo curyaan waa muuqdaa qaybna ma muuqato dhogol ma muuqdo sidaa darteed taageeradeena waxay ku wajahan tahay kuwa muuqda curyaan iyo maaragtay indhool ay ku wajahan tahay aniga dhogol shaqo ku marhin taasi watan dib noo dhigtay weeye iskuulada waxyaabaha ugu daran waxaa ka mid ah gabdhaha aad ay u tiro badan yihiin gabdho badan oo gudaha iska jooga haddii heli lahaayeen cid lacag ka bixisa haddii heli lahaayeen cid baabuurka go ambag lacagtooda bixisa dad badan ayaa wax baran lahaa dalka waxay u qaban lahaayeen laakiin ma haystaan cid tixgelisa oo maartay sidii ardayda kaleeta ee maqalka la kharashka looga bixiyo cid uga bixisa ma la helayo oo maartay takoorka wuxuu ka bilaabanayaa waalidka aabaha iyo hooyada cunugiisa wax maqlayo lacag ka bixiyaa cunugiisa wax maqlin wuxuu barnayo hayjoogu dhahaa alaab ciyaaro ku ciyaaro haddaan nahay dhowlasha Soomaaliyeed
waxaa khasab ah waajib ah inaan helno Somali sign language tusaale yar hadaa idin siiyo American sign language hooyo markuu dhahayo waxaan fahmi karnaa maaha Turkiga hooyo markuu dhahayo Sweden hooyo markuu dhahayo laakiin anaga hooyo markaan leenahay kii Soomaaliga ay maartay kii wax maqlay ka wax maqlay labadaba way fahmayaan marka Somali sign language in la helo waa waajib dastuuri ah waxaan maartay ka codsanaynaa dawladda inta ay xilkaan hayso inay noo suurto geliso in aan helno Somali sign language si xuquuqdeena oo full ah meel kasta aan u helno waxaan maartay aanu munaasabadan ka faa'iideysanayo aan u sheegayaa waalidka haysta caruurta maqalka la in hadda magaalada Muqdisho ay ka furan yahay iskuul waxa lagu baro ardayda maqalka la kaasoo lacag la'aan ah wasaaradda ay hoos imaado caruurta iyo guryaha lagu haynin waxbarasho diin mid maadi mid caafimaad intaba anaga ayaa u hayno hanala soo xiriiraan yaan ilmaha guriga lagu halay maartay lagu haysanin yaa cuqubo laga gelin xuquuq buuxda ay leeyihiin marka hala keeno iskuulka Somali Deaf School anaga hore idinku sheeganay marka aan shaqo raadinayno ama marka aan maartay hay'ad taageer ka raadinayno jawaabta ay siiyaan inta badan waxa weeye aniga naafada muuqata aan taageernaa aan u haynaa budget iyo dhaqaale u haynaa laakiin dhool budget uma hayno si toos ah inoo lahan waxaa jirto shirarka dhawlayaasha dawladaha Carabta ama dawladaha adduunka ka dhaco intooda badan waa ka soo qayb galnay dalalka aan ka soo qayb galnay waxaa kamid ah Qatar Malaysia Gambia Turkiya Faransiiska intaas buu ka soo qayb galnay dhibaatooyinka ugu weyn ee naga haysta waxaa kamid markaan meesha tagno marka hore waxaa la dhahaa dal kasta luqadiisa sida uu salaanta ugu hadlo ha soo bandhigo aniga haddaan Soomaalinahay wax noo diyaarsan ma jirto Soomaali haddaan nahay wax noo diyaarsan ma jirto وفات زمها سيادتد وحن كخسباننا إن أمريكا إنسان لقود استعمالنا وحن اللي هذا أمريكا أجوجو مركز يسكفر تصبح تقول إن عالم كان مش القصيبه وعالم أما أمريكا أما السكقريو متك أمريكا أو متك كينيا أو متك مارتي بريتش أو كده فلان نقولها بدون قوة ولا تصوير وهكذا غياب له شركة كذا عدبده أنا جالس توس نلقسو عسومة Soomaali ahaan dawladda inoo masuulto gelisay inaan ka soo qayb galno bal haddii ogaata ayada dad kale ku dirsada si u tahriibaan arrintaas way dhacday waana cadaynayaa Turkiga dalkiisa nagu casumay tigid fiisi waa haysanay dawladdan taageero wala tagnay dawladda meesha aan ka suganay anaga taageerto laba qof oo kale ay ku dirsadeen saas aan ku baqanay banaanbax aan samaynay madaxweyne Rajab ayaa maartay soo wacay safiirka ayaa iskuulku nagu imaaday oo laga raali galiyay arrintaas ayda dhibaatooyinka nagu dhacay ka mid ah hadda wadmaan waxaan ku darayaa in baaqayga aad gaarsiisaan dhammaan hay'adaha dawladda ganacsatada deeq-bixiyaasha in aan u baahanahay taageero si aan ula tartanno ardayda kale ee wax maqasha ee xuquuq waxbarasho oo full ah helo si anigana xuquuq waxbarasho oo full u helno marka in baaqaniga aad gaarsiisaan dadkaas oo dhan mid kale in waalid badan oo waxa jiro aan ka warqabin in dhagolayaal ay wax baran karaan oo caruurtooda guryaha ku hayo iskuulaha xamarka furan waa lacag la'aan maartay iskuulahaas ha kaansadaan si ardadooda ay wax u bartaan